kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada codka Tolmon. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa si weyn looga dareemayay Hindiya dhimashada laba jila oo caan ah kuwaas oo kaalin lixaad kaga jiray geedi socodka aflaamta Hindiya. Labadan jila ayaa kala ah Irfan Khan iyo Rishi Kapoor. Geerida labadan jila ayaa waxa u dhaxeeyay wax ka yar 24 saacadood oo kaliya, waxaana arrintaasi si weyn u saameysay bahdii ay shaqo wadaagta ahaayeen iyo guud ahaanba taageerayaashooda kala duwan ee ku sugan daafaha caalamka. Rishi Kapoor oo kamid ahaa mid kamid ah qoysaska ugu magaca dheer Bollywoodka ee Kapoor ayaa ku dhintay da'da 67 jir kadib dagaal dheer oo kula jiray cudurka leukemia oo ah kansarka ku dhaca dhiigga. Jilaagan ayaa sida la sheegay cudurkani ku soo baxay sanadkii 2018. Rishi Kapoor ayaa Sebtembartii la soo dhaafay ku soo laabtay Hindiya kadib muddo sanad ka badan oo daaweyn u joogay New York. Aktarkan ayaa si weyn baryihii u dambeeyay ula daalaa-dhacay xaaladiisa caafimaad laba jeer ayaana isbitaalka la dhigay bishii Febraayo la soo dhaafay. Jilaagan ayaa subaxnimadii Arbacada loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Mumbai kadib markii uu cabasho ka muujiyay dhanka neefsiga, waxaana uu dhintay maalinkii Khamiista sida lagu sheegay bayaan qoyska ayaa bayaankooda ku muujiyay in noloshiisu ay si nabad ah ku dhamaatay. Sidoo kale waxay qoysku ka codsadeen taageerayaashooda inay u hoggaansamaan sharciyada bandowga ee xaaladaha corona ee haatan lagu jiro. Qoyska Kapoor oo ah qoys aad u ballaaran ayaa taariikh aad u fac weyn ku leh filimada Hindiya, waxaana ay door muuqda ka qaateen dhanka filim soo saarista, hagida iyo jiliinkaba. Rishi Kapoor aabihii Raj Kapoor iyo awowgii Prithviraj Kapoorba waxay ahaayeen filim soo saarayaal si weyn ixtiraam uga dhexleh shirkadda Bollywoodka. Rishi ayaa waxa uu helay abaalmarinta filimada qaranka ee doorkiisii ugu horreeyay taasoo uu ku mutaystay filimkii aabihii ee 1970 kaasoo lagu magacaabo Mera Naam Joker oo uu metelay isagoo da'diisu aad u yar tahay. Sidoo kale waxa uu ku guuleystay abaalmarinta jilaagii ugu fiicnaa sanadkii 1973 oo ku qaatay filimkiisii Bobby oo uu hagay iyo soo saaraba ka ahaa aabihii Raj Kapoor. Filimkaas ayaa xambaarsanaa jacaylka laba dhalinyaro oo kala dabaqada ah. Rishi Kapoor oo filimka ku dhigaya Rajnas ayaa jacayl u qaadaya Dimbal Kapoor oo ku dhigaysa Bobby oo ah gabadh uu dhalay nin faqiir oo kalluumaysta. Rishi ayaa waxa uu jiray in ka badan 90 filim intii uu ku jiray saaxadda Bollywoodka. Filimkiisii ugu dambeeyay oo soo baxay 2019 ayaa ah The Bird oo ay wada jilayaan Imran Hashmi. Aktarkan xaaskiisa Neetu Singh oo u dhashay laba carruur ah oo kala ah Ranbir Kapoor iyo Radhima Kapoor ayaa iyana ay filimo badan ka soo wada muuqdeen. Geerida jilaagan ayaa si weyn u damaqday guud ahaan Hindiya iyo taageerayaasha ku xidhan aflaamta Hindiga ee adduunweynaha ku nool. Amitabh Bachchan oo ay saaxiib ahaayeen kana soo wada shaqeeyeen dhowr filim oo ka mid yahay filimka Kabhi Kabhi ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray wuu tegay Rishi Kapoor wuu tegay mar dhaweyd ayuu dhintay waan baaba'ay. Rahul Gandhi oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Hindiya ayaa isna bartiisa Twitterka ku soo qoray toddobaadkani waa mid ku xun sinimada Hindiya dhimashada foolaad labaad jilaa Rishi Kapoor aktar cajiib ah kaas oo lahaa taageerayaal aad u badan kuwaasoo daba socday jiilba jiil. Si weyn ayaa loo tabi doonaa. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskiisa, asxaabtiisa iyo taageerayaashiisa adduunka oo dhan waqtigan murugada leh. Muddo aan dhammayn 24 saacadood ka hor geerida Rishi Kapoor ayaa waxa isna ku geeriyooday magaalada Mumbai jilaaga caanka ee Irfan Khan. Irfan ayaa waxa la dhigay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Mumbai ee Kokilaben talaadadii isagoo oo qaba cudurka kansarka, waxaana subaxnimadii Arbacada la soo saaray bayaan xaqiijinaya dhimashadiisa. Irfan ayaa ugu dhintay da'da 53 sano jir. Xanuun ay yartahay dadka adduunka uu ku dhacay kaasoo abbaara nidaamka dheefshiidka isla markaana khalkhal geliya. Xanuunkan ayaa 2018 ku bilaabmay jilaaga muddo badan oo uu ku maqnaa London si uu isaga soo daaweeyo xanuunka kadib waxa uu ku soo laabtay Hindiya bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay. Irfan Khan waxa uu ka dhashay qoys Muslim ah oo aan isir u ahayn jilidda aflaamta kuwaasoo dega Rajasthan oo ah ismaamulka waqooyiga ee Hindiya oo ah midka baaxad ahaan ugu ballaaran guud ahaan Hindiya. Yaraantiisa Irfan waxa uu aad ugu fiicnaa ciyaarta cricketka oo Hindiya aad uga caan ah, waxaana loo xushay inuu ka ciyaaro CK Nayudu Trophy oo loogu talagalay ciyaartooyada soo ifbaxaya ee da'doodu ka yar tahay 23 sano. Tartankaas oo loo arkay in uu horseedo cricketka
heerka koowaad ee Hindiya. Si kastaba ha noqotee ma uusan iman maadaama uusan awoodi karin kharashaadka safarka. Cirfaan waxa uu aad u xiisayn jiray in adeerkii oo ka ahaa fanaan masraxadeed Jaipur la shaqeeyo ilaa uu gaadhay heer wax ku soo bandhigo masraxa magaalada. Waxa uu ilaa heer master ku soo diyaariyay magaalada Jaipur ka hor intii aanu ku biirin dugsiga qaran ee masraxiyadda ee New Delhi sanadkii 1984 si uu wax uga barto jilidda. Markii uu yimi Mumbai waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo hagaajinta qaboojiyeyaasha ku xidhan guryaha ilaa ugu dambeyntii galay guriga actor-ka weyn ee Rajesh Khan kaas oo ku ilhaamiyay shaqada jiliinka. Khan waxa door aad u kooban laga siiyay filimka Salaam Mumbai kadib markii uu dugsiga jilitaanka soo dhameeyay sanadkii 1987. actor-kan ayaa dhowr mar ku guuleystay abaalmarinta jilaagii ugu fiicnaa waxaana ka mid ahaa sanadkii 2013 oo uu qaatay abaalmarinta qaran ee filimaanta. Sidoo kale 2014 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta aflaamta Asia. Cirfaan waxa uu guursaday Sutaba Sikdar oo ay wada dhigan jireen dugsigiisii masraxiyadda. Labadan lamaane waxa ay leeyihiin laba wiil, Ayan Khan iyo Babil Khan. Sutaba waa filim soo saare sheeko sameeye iyo qora wada sheekaysiga filimada. Waxa ay qayb ka noqotay soo saaridda aflaam badan oo caan ah. Cirfaan kuma uu koobnaan kaliya Bollywood, waxa uu qayb weyn ka soo qaatay Hollywood oo laga xasuusan doono filimka Inferno oo ay wada dhigayaan actor-ka Tom Hanks. Waxa sidoo kale lagu xasuusan doonaa Basel iyo filimka ku guuleystay Oscar-ka ee Slumdog Millionaire. sidoo kale waxa uu kaalin ka qaatay filimada Ingiriiska waxaana ka mid ahaa filimkiisii 2001 ee Warrior. filimkiisii ugu dambeeyay ayaa la sii daayay bishii Maarch 13 muddo 3 maalin ah markii uu tiyaatarka saarnaa. waxa la soo rogay bandowga xaaladaha adag ee koronaha. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu sheegay in dhimashada Khan ay khasaare ku tahay filimada iyo tiyaatarada adduunka. Asani daawade waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.